kusoo dhawaada warka maqal news maanta Arbaca ayuu soo gudbin doonaa madaxa dacwoogaha Lynn Shopping Ivano codsi ku aadan in la soo qabqabto 5 qofood oo la eedeynayo dadkan ayaa lagu shakisay inay galeen dambiyo culus oo halis ay ugu jiraan in lagu xukumo 2 sano shacabka laftooda ayaa mar la wareystay waxay sheegeen in aysan dambi lahayn isla markaana ay u taagnaayeen kaliya si ay u daawadaan wixii ka dhacay magaalada Lynn Shopping dadkan waa la soo xirayaa waxaan haysanaa cadeemo wanaagsan ayay tiri madaxa dacwoogada Eva Namiknuud magaalada maalmo fasal ayaa la gubay xaafada Rosengood raadadkii rabshadii isbuucii tagay ayaa wali lagu arkayaa gawaari gubatay iyo dambas dhulka yaala ilaa 200 oo arday ayaa dhigtay Rosengood School ayadoona guryaha loo diray sababa meel ay wax ku dhigtaan aysan jirin fasalada ayaa haatan bas beelay oo waxa la arkay gabi ahaan ayadoo alwaaxyadii iyo dhismihii uu dambas beelay waxay saameysay kuwa da'da yar iskuuladan aad bay u muhiim yihiin ayay tiri Cecilia Larson oo ah madaxa iskuulka Rosengood School oo la hadlaysay joornaalka DN waxaana la arkayaa fasalada dambas beelay oo aan la ogeyn goorta la sii dayactiri doono ugu dambeyn filim soo saaray Axmed Cabdullaahi ayaa soo saaray musalsal cusub oo haatan laga daawan karo TV-ga SVT waxa uu sheegay Axmed inuu aad ugu faraxsan yahay sidii haatan wax u soconayaan wuxuu hadda duubayaa filimkii ugu horeeyay ee uu soo bandhigay isagoo ka sii shaqeyn doono musalsalkan cusub waqti fiican ayaan ku jira ayuu yiri Axmed mar uu la hadlayay joornaal maxalli ah oo ka soo baxay magaalada Stockholm oo loogu yeero Yarbatiidning magaca waa Maxamed Ibrahim Yaale warkaasina waxaa ka daawan kartaan channelkan YouTube-ka sidoo kale website-ka maqalnews.com nabadgelyo